حقات أضيق إنه قفك مسلم في زمن كان أيضا نهي دينتي سيدا أولا جنادو لكن تاوحك كبيرك سنيسا وحقات هينيسا كنتم صحابي حاكي بكونا النبي صلى الله عليه وسلم وما لأصحابتي سنح فرديا أيا وحا ودهي وحا إيمان دون زمن كاس أو قفك دينتي سهيستا كل جن ولم يدي هيسيدي قف دنبيل ضبقة كعنت الصدا أو هيستا سبحان الله وحنا راي النبي صلى الله عليه وسلم قفكاس waxa uu helaya konton qof ajirkooda markaas ay asxaabtu dhaheen radwanullahi alayhim ma konton annaga ah mise konton iyaga ah markaas nabi sallallahu alayhi wasallam dhaay ma konton idinka ah ma sha Allah zamankan aynu nool nahayn waa zaman qofka diinta ku dhagan ay dambiil daba la mid tahay ay sababtu tahay nabiga asxaabtiisu waxay noolaayeen waqti bi'ada ama deegaanka dadka ku nool ay kugu dhiiri gelinayaan inaad ilaahay si wanaagsan u caabudo inaad salaadii on time aad tukato inaad zakada bixiso inaad waalidka adeecdo in aad la timaado wixii qof muslim ah laga rabay oo dhan halka inagu aynu nool nahay zamankaas lid ku ah oo bi'adii ay kugu dhiiri gelinayso inaad ilaahay caasiso inaad heesa dhageysato halkaas quraan ka dhageysan lahayd ama ay dumarkii isqaawiyaan oo meel kasta oo aad furto ama banaanka real life ka ama social media gaba aad arkayso habla akhlaaqda intay ka dhimatay isqaaqaawinaya subhanallah halkii laga rabay inay ilaahay si wanaagsan u caabudaan oo ay diintooda ku dhaganaadaan si ay u helaan konton saxaabi ajirkooda aad u adag inuu qofka muslimkii zamankan aynu nool nahay diintiisa sidaa ugu dhaganaado laakiin taa waxaad kaga bogsanaysaa waxa aad helaysaa konton saxaabi ajirkooda ma sha Allah إلهي وحن كبريا إنه نقدقو كوا هلا كنتن صحابي أجير كودا كدوا يا رب